أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والثناء لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Again, welcome to Al-Fitra, inshallah, بإذن. طيب, so the topic sent today was Somali. So I'm just going to be speaking both so that the people who don't understand Somali will get a whiff of it, and the ones who don't understand English will also get, like a whiff of it. So the topic is Somali da lagu yiraahdo yaa guriga hoggaano ah. طيب, yaa guriga hoggaano ah, meaning who is the person, who does the main responsibility of the family fall upon in the house? Who's responsible? Who's the leader in the house? طيب, and so today we're going to look at it from a different perspective. dhinaca kale baan maanta wax ka eegaynaa, because usually waxaan sameynaa in la yiraahdo مثلا ninka mas'uul ah or qofka dumarka, we go and attack one person and we mention one person. But today we're going to dissect the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, hadithka rasuulka alayhi salatu wasalam, waliba dhowr hadith baan maanta insha Allah soo qaadan doonaa. Then waxaan eegi doonaa mas'uuliyaddu iyay yani fuulaysa ama iyay yani dul saaran tahay. Marka Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma wa ardaah wuxuu yiri, يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا حديث. طيب, يا رسولك عليه الصلاة والسلام حديثك لك سوري ابن عمر وحليه وحيري كلكم marka ereyg asbantoyna qaadano كلكم راع. family marka la eego as an usra yaa mas'uul ah, yay saaran tahay mas'uuliyadda. xadiidkan haddaanu eegno mas'uuliyad horta qof walbay saaran tahay, laakiin waxaa jira waxa la yiraahdo hierarchy, waa la kala sarreeyaa. qof kasta, shakhsi kasta ilaahay abuuray mas'uuliyad buu saaray, bad waxaa jirta waxa la yiraahdo kala sarreyn ama kala dambeyn. So there's a hierarchy in that sense. marka fi Abu Hurairah wuxuu leeyahay radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa, يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه، يعني حفظ أم ضيع. يعني رسولك يعني عليه الصلاة والسلام الحديث قال قصوري أبو هريرة وعليه إلهي سبحانه وتعالى قف كستا أو مسؤولية لساري، مسؤولية دي لساري ولا ويدين إنه يعني مسؤولية دا حفظيي أما إنه يعني ضيعي. Whether the person preserved the responsibility or they neglected the responsibility, Allah subhanahu wa ta'ala will ask that. طيب, حديث كان يقول لي هاي وصوري أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه، إن الله يحب إلهي وحج عليه إذا عمل أحدكم عملا، يعني ميت إذن كمذا يعني هذا حول واضره حالة قدر إنه سميه يعني أن يتقنه. So if one of you is given a responsibility
that you do your responsibility, you take your responsibility you do it with excellence and يتقنه بالإتقان يعني. marka maadaamu intaasoo dhan aan ogaanay dee marka sheekadu su-aashu waxaa weeye yaa mas-uul ah, right? mas-uuliyadda qofka walba saaran marka maxay tahay, yaase la weydiinaya. so marka la eego hierarchy-ga marka loo eego kala sarreynta, allah subxaanahu watacaala awalan raggana mas-uul buu ka dhigay, dumarkii mas-uul buu ka dhigay, caruurtii mas-uuliyad baa saaran, society-gana mas-uul baa saaran. qof kastana maanta waxaan eegaynaa mas-uuliyadda la saaray miyuu ka soo baxay iyo sidoo kamuu soo bixin. soo dhawaada. ayib calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. ayib marka yaa markaan familiga ilan islaamku wuxuuna faray something called usra. There's a family, the family unit, al-usra. usradii marka waa system taagan oo sida dowladda oo kale. It has a leader, it has a follower, and everybody has a position of responsibility in that usra. So Aisha marka waxa who is the head of the usra? yaa usradana mareerkan madax u ah. ilaahay mas-uuliyaddaas wuxuu saaray ninka ayuu saaray الرجل, the father or the husband, ama ninkii oo aabihii aw zawjkii. asaga marka mas-uuliyadda la saaray waxaa weeye horta waa marka la yidhahdo mas-uuliyaddu waa mas-uuliyad rabbaani ah. waa wax qofka ilaahay subxaanahu watacaala uu weydiin doono. ayib waa mas-uuliyad rabbaani ah, yowma alqiyaamana lala xisaabtamayo, la weydiinayo mas-uuliyaddii lagu saaray meed ka soo baxday si kamaad soo bixin. so asaga marka muxuu mas-uulka yahay? wuxuu mas-uulka yahay ninka inuu to take care of the family. taking care of the family waxay noqonaysaa either it has to be financially, afwan, waxay noqonaysaa usradaas inuu dhaqaalaha yani to take care of the finances, dhaqaalihiis yani Soomaaliha. I'm trying in labadaba, I'm juggling igaraali hada. haye marka afwan, mas-uuliyadda marka yani inuu reerkii xanaaneeyo markay timaado dhaqaalaha, yani cuntadoodii, maxaa la yirahdaa deganaashadoodii, where they live. ayib iyo ta ugu muhiimsan waxaa weeye diintooda. markaas inuu ilaaliyo markaa ehelkiisa mas-uuliyadda la saaray waxaa weeye gurigiisa inuu noqdo guri ilaahay subxaanahu watacaala lagu caabudo. bimacnaa isaga xaaskiisa iyo caruurtiisa ayuu mas-uul ka yahay, gurigiisa ayuu mas-uul ka yahay in rabbi yani ciza lagu caabudo. meeshaas uu yahay meel tawxiid, yani wajacaluu buyuutakum qibla, meel ilaahay subxaanahu watacaala yani lagu caabudo inuu ka dhigo mas-uuliyaddaas asaga iskale. marka ninku asaga wuxuu leeyahay mas-uuliyadda guud as a general yani responsibility from the top. marka safetygii gurigii, securitygii, financial security-gii yani dhaqaalihii, maxaa la yirahdaa caqiida toosan in meesha yani subxaan allah lagu hayo, cibaadadii, caruurtii, xaaskii, waxaasoo dhan buu mas-uulka yahay. adigu waxaad ka soo qaadaa ninkan security-kana waardiyaha guryaha ilaaliya, ama habeen ha ilaaliyo ama maalin ha ilaaliyo, mas-uul wuxuu ka yahay meeshuu ilaalinayo inayna dhib imaanin, sooma, inay safe tahay. cidda soo galaysa, cidda baxaysa, maxaa meesha yani subxaan allah agaagihiisa buu ilaalinaya. hadday habeen tahay toosh yar buu qaadanaya, meesha buu ku bininaya, yani inuu tuug usoo dhaco wuxuu ka ilaalinaya markaas yani inay dhibaato meesha timaado. so ninka ilaahay mas-uuliyad buu saaray inuu familigaas ama gurigaas ka ilaaliyo, yani dhib inuu meel yani uga soo galo. dhibkaas ha ahaado dhibaato yani dulmi, gaajo, maxaa la yirahdaa caqiida daro, cilmi daro, waxaasoo dhan waa inuu ka ilaaliyaa siduu gurigaas u noqdo guri yani subxaan allah safe amaan ah. marka hadduu asaga taa laga doonayo, dee qofta dumarka maxaa laga doonaya? sometimes waxaad arkaysaa in aan wada leenahay okay this is my rights, that's his rights, waxaa laga wada hadlaa waa rights iyo xuquuq. taas meel iska dhig. meesha ilaahay subxaanahu watacaala horta kuma weydiinayo aakhiro did you get your rights, xaqaagii horta ma lagu siiyey, cidna kuma weydiinayso. laakiin maxaa lagu weydiinayaa? mas-uuliyaddaadii ma ka soo baxday?
sababta taas aan loo weydiinayna waxaa weeye aniga maanta haddii aan qof yani adiga oo kale mas-uuliyaddayda aan ka soo baxo based on you towards you adna aad mas-uuliyaddaada ka soo baxday towards me by default qof walba rightskiisu helaya marka gabadha hadday yani ka soo baxdo mas-uuliyaddeeda asagana uu ka soo baxo mas-uuliyaddiisa labadaba maxay helayaan rightskoodii bay helayaan marka gabadha iyada maxaa laga doonaya gabadha waxaa laga doonaya xaaska ama hooyada ah maadaama ninkii generally guud ahaan uu mas-uul yahay ayadana gurigii iyo ubadkii iyo hoosta inay mas-uul ka tahay so he covers the top and she covers the bottom meesha marka waxay noqonaysaa meel yani every angle waa la cover gareeyey ayadana hoos bay wax ka soo dhisaysaa asna korba wax ka soo dhisaya labadoodba marka waa isku manhaj waa isku mabda waa isku aragti waa isku hadafkuna wuxuu yahay maadaama yani waxaan ay tahay wax cibaado ah oo ilaahay subxaanahu watacaala uuna faray in la isguursado in wax la dhalo dee halkan kuma dhammaanaysa adduunkai aakhira laisla tegaya maadaama aakhira laisla tegaya dadkan waxay noqonayaan dad adduunka kaliya kooda nool maahane aakhirana isu raacaya marka maxaa la ilaalinayaan labadooda waxay ilaalinayaan meeshan ay dhistaan gurigan yar ay samaystaan hoygana ay samaystaan in ilaahay lagu caabudo oo lagu deganaado subxaanallah sakiina ayib sakiina iyo deganaasho yani ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi guryaan idiin samaynay yani sakanan meel degita aad ku degtaan marka degitaankaas it could be physical it could be psychological soo maha ayib marka waxaa la diidayaa yani ka society ahaan annaga weliba culturekeena kala dambeyn way nagu yar tahay in la kala dambeeyo oo la yiraahdo ninkani ilaahayba mas-uuliyad saaray anigana ilaahayba mas-uuliyad saaray mas-uuliyadda marka xadiidka sheegaya walmar'atu qofka haweenayga ahna yani mas-uuliyadda saaran waxaa weeye inay ilaaliso beyta zawjiha wa awlaadiha yani guriga ninkeeda caruurteeda yani gurigii ayada waxay tahay manager waxay u tahay intaas macnaheedu maaha inaanad shaqaysan karaynin macnaheedu maaha inaanad maanta dhaftar noqon karaynin macnaheedu maaha inaanad maxaa la yidhahdaa aanad noqon karaynin mucalimad aanad noqon karaynin waxaasna waad samaysan kartaa those are secondary wayaan laakiin primary objectiveka qofka dumarka waxaa laga doonayaa mas-uuliyadda ilaahay uu ku saaray waatee waxaa jirta mas-uuliyad rabbaani ah iyo what is permissible mubaax for me to do macaniga mubaaxii ah waan shaqaysan karaa alxamdulilah waxbaan qabsan karaa gurigeyga carurteyda laakiin muxuu ilaahay aakhiro i weydiinayaa waxaa la weydiinayaa gurigeyga iyo ubadkeyga iyo zawjigeyga ayib marka teeba muhiim ah in yani qofka yani uu ku mintido which one is the one that you have to focus on the primary waxaa weeye my home because gurigani waa guri muslim waxaa laga doonaya marka ubad muslima inay ka soo baxaan societyga meesha lagu beriyo muslimka waa gurigii guri kasta haddaa la yiraahdo zawjka inuu dusha ka ilaaliyo diintii caqiidadii finanskii wixii gabadhan ay hoosta wixii kasoo ilaaliso hadhowta maxaa imaanaya labadoodii inay soo saaraan society muslim oo wanaagsan soo maaha jiil after jiil generation after generation ayib caruurtii marka ayagu maxay mas-uul ka yihiin waxay mas-uul ka yihiin yani wixii la baray iyo wixii ay ka arkayeen aathaartii ay waalidkii ka arkayeen inay raacaan wanaag inay sameeyaan waalidka in hadhowta markay weynaadaan ay u wanaagsanaadaan and so they take care of the family when the family gets older yani waqfid lahuma janaaxa dulli min alraxma inay noqdaan yani dad waa lisbedelaya saa lisma bedelayo mas-uuliyad bay hadhowta igana qaadi doonaan toodii iyo tii waalidkii societyga marka mas-uuliyaddu leeyahy waa maxay societyga mas-uuliyaddu asaga leeyahy waxaa weeye maadaama guri kasta waxa lagu dhex sameeyo yani uu yahay bulsho dhisid waxaa la diidaya bulshada wanaagsan ee la dhisayo xumaan inay ka timaado banaankii oo societygii yani bulshadii waxaa laga doonaya in ay yani ilaaliso in yani xumaan aynana soo dhex imaanin oo ah man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu so you see waxaad arkaysaa wax that is inappropriate oon sax ahayn then what do you do falyugayirhu you have to change it waa inaad wax ka qabataa
So family, the husband, the wife, the children and the general يعني community كلنا waxaan u wada jeednaa hadafka iyagu muxuu yahay in jiil ama usra ama maxaa la dhahaa community يعني wanaagsan oo muslixa in la soo saaro. طيب, so now where is the problem? hadda waxaan gelaynaa the nitty gritty of mushkiladda markaa maxay tahay, dhibaatadu xaggee ka timid, why is society-gana maanta muslimka uu kala daadsan yahay, maxay caruurteena sida u yihiin, maxay dumarkeeni saa u yihiin, maxaa raggeeni ku dhacay, where is the problem? ilan anaga ilaahay guidelines buu la siiyey, raggi guideline baa la siiyey, waxaa la yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa, soo قوامك محتم حيحية وين نتفهمنا آياتك إلهي سبحانه وتعالى ما هي قوامك محتم حيحية قوامك وحوي قف أتهاجن يعني to protect and to guide and to save the family, هذا قوام constantly قفك وحوي أتهاجن يعني أهلك to take care. إلهي سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى الله محييه قيوم السماوات والأرض وح الله لو إلهي أبوري عرك يدلك وح كتشرا إلهي بوتاعن he takes care of them, he protects them, he guides them أسجى هلونية أسجى قودية يعني وقيوم بويحي منك مركا وحالي إذا دق وحطون قطع أسرة هذا قوام ونقو قوامكم معنيه سماها قفك حدا مسؤولية أسيو إنه نقول بوسي أصدق أنا بوس بناحي taliyaan ahay kaligay baan tashanaya cidna wax ma weydiinayo qofkan doonana waan buli garaynaya shakadu saas maaha naga qawaamka waxa weeye yani waxani ilaahay baa mas'uuliyad ii dhiibay wuxuuna yiri si wanaagsan oo naxariis leh oo kalgacayl leh yani reerkan maxaan ku sameeyaa take care of them. طيب, so hadday timaado situation haddaan isnado go'aan gaare ma kaligay baan gaaraya may إلهي وقلنا بريد the concept of شورى وأمرهم شورى بينهم سماء إن لو وضع تشغو إن لو وضع فريستو وح لو وضع أنه يعني سبحان الله as a family this is وح يعني دين تنا أين فرتي إلهي باتانا فريق رسول كيس عليه الصلاة والسلام يعني ونا to see as an example. طيب, مجد الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. usually أروسيدا ما كلا سمينا آيات أصلاً آخر سوا آيات ما كلا آخرين ماشى سيقدم بيسا after that وحال رضا إلهي هنوقو أنفعه then we move on but what we don't يعني سبحان الله we misunderstand is literally guideline كقفك مسلم كواتاس that's the guideline of قفك مسلم كا guriga islaamka waa gurigaas yacni labadaa qof waxay isugu yimaadeen oo qof walba reerahooda uga yimid inay wada degaan, inay isu naxariistaan, inay kala dambeeyaan, inay isdhegaystaan, inay wax wada wadaagaan. That is the concept. taas waxaa la doonaya waa intaa. طيب, marka maadaamu ninkii ilaahay mas-uuliyadda uu saaray aakhirana asaga la weydiinayo gabadha marka maxaa laga doonaya weyn waa iyadana inay support garaysa asagii يعني أيضاً محي أوتها نينكا support system. حتى وحاجرة يعني in 2025 and in the future وحاجرة واحدة the competition يعني gender biases gender competition بحاجرة وحابة حتى يعني and this is a Western ideology يعني إن اللي يرحضوا يعني competition you know like whatever he can do I can do ماشي competition معه دينتنا is we're not competing هدف كانوا ومت goal كانوا ومد نحن نسعنا والله سبحانه وتعالى كان ذي إلهينا ونوضع سعنا so what is كاشنينا we're supporting each other سيدا مركان رب العالمين هور استاغنو أن نقول ضد يعني سوق بتوحي لوتري مركا جمد مسلمات أو حلقة دونية من كان واجب كإلهي وصاري it's a very challenging or difficult وواجب إنه يكون كالميسو because كليجي ما كمان كروش ألاس hadday maanta iyada tiraahdo gacmaha laabato oo tiraahdo daadu ilaahay mas'uuliyadda ku saaree ka soo bax keligii kama soo bixi karo it's very challenging so wuxuu u baahan yahay support system yani qofku wax la fahmo wax la qabta. طيب, asagiina marka waxaa la yidhi maadaama la yidhi gurigaaga mas'uul baad ka tahay diiniyan finance يعني financially safety wise mas'uul baad ka tahay hadday ayada timaado tirada anigu waxaan doonaya waan samaynayaa
madaxaygan ku soconayaa khilaaf ba meesha ka imaanaya waayo isaga malaa wuxuu ka baqaya dee mas-uuliyaddii ilaahay uu yani uu asaga qaaday oo la yidhi gurigani maanta waa inuu noqdaa guri muslim oo caqiida yani caqiida toosan waa in yani lagu maamulaa gurigan oo ayadana anigana aan decide garayo marka waxaan doonaan samaynaya goortaan doonaan baxaya you know maxaa lada I will listen to whatever I want it's going to be difficult for him to fulfill yani inuu fulfill garayo markaas ama uu ka soo baxo mas-uuliyaddiisu way ku adkaanaysaa ayib الله سبحانه وتعالى نبي الله إسماعيل مركز قرآن كأرت ليه هي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها صما ومركز أيضا سنة قلنا بالغسعة يعني أهل كاجا هي صلاة فر بمعنى the family you as a mother عروتي بتصلاة فريسة the father family يجيبوا صلاة فريسة إمام بوياي كورن حتى لو يرادوا صلاة تذكر family كاجا ويعد كسك هديته ما حد قبل كرتادبه ما كمان كرتا was very difficult so the only time at ayada ku dhaqmi karaysid waxa weeye markay dadka ku maqlaan samaha haddaan maanta aniga diido yani inaan zawjkayga dhegeysto for example right wixii macruuf ah wixii wanaagsan wixii ilaahay amray haddaan ka diido oon aniga samayso my own way waxay ku adkaanaysaa asaga markaa tii ilaahay uu faray inuu la yimaado it's gonna be very difficult sometimes waxaa dhacda cafwan waxaa dhacda markaa laga ka soo qaadba ninkii baa lagu sameeyey mas-uuliyaddii buuba kafay he is irresponsible way jiraan somaa dad irresponsible ah mas-uuliyad isaga la saaray hadduu ka soo bixi waayo yay ku dhacaysaa mas-uuliyaddaas yacni meeshuu problemka ka dhanale baan hadda rabaa inaan idiin sheego hadduu mas-uuliyaddiisii ka soo bixi waayo yaa mas-uuliyaddaas ay ku soo dhacaysaa yaa hooyada okay hooyadii marka mas-uuliyaddii ninkii uu qaadi waayo hadduu yacni diido oo noqdo dee qof khayr mas-uul ah haddii iyada ku soo dhacdo mas-uuliyaddaas imise mas-uuliyad baad markaa qaadaysa iyadu laba tiisi iyo teedii marka qofkii is it sustainable ma dhici karaysa marka qof kale mas-uuliyaddiisa iyo taada inaad isku qaatid how long ba saa ku wadi kartaa ma adag tahay mise way fudud tahay aad bay u adag tahay tiisi inay marka tiisi waxay ahayd yacni dushii maasha allah meesha guriga ka ilaali financial supportkii la kaali banaanka tag oo soo shaqee that's a lot of if he's not there ama mas-uuliyaddiisa uu gafo ayadii ay tiisi markaa yani ay samayso qabato maxaa dayacmaya teedii baa dayacmaysa hooyada markaa teedii baa dayacmaysa teeda dayacantana waa tee gurigii iyo mas-uuliyaddii iyo dhisitaankii iyo deganaashadii iyo caruurtii oo la ogaado iyo maamulkii iyo wixii dhan because maxay mashquul ku tahay mas-uuliyad kale mashquul ku tahay horta do we understand what that means wadila fahmaysaa manu malayn hooyadii maanta waxay taagan tahay iskuulkii waxay taagan tahay madrasadii waxay taagan tahay hadduu homework kala bira haddii whatever ayadiiba markaa waxay wadataa boorsadiiyo hogaankii gaarigii iyada wada she is doing every single thing she can yay ka fargaraynaysaa marka mas-uuliyaddii qaatay mas-uuliyaddii ayaa la siiyey tii ninka la siiyey teedii marka maxaa ku dhacay okay ayadu maadaama labadii ayna isku wada qaban karaynin ayadu teeda markaa qof kale dusha ka saaraysaa usually waxaa dusha laga saaraa ilmaha reerka ugu weyn ila fahamteen the oldest child in the family baa hadda waxaa laga dhigayaa very quickly wuxuu noqonayaa parent waalid buu noqonayaa walaalihii buu u noqonayaa waalid hooy caruurta waxaa u sameeya telefoon baa lasoo diray hooy kalma samaysay homeworkooda so ilmahaas markaa maadaama responsibilitygiisii ilan asagu waa arday wax buu dhiganayaa quraan buu xifdinayaa iskuol buu leeyahay homework buu leeyahay tii oo dhan baa layidhi adigu taadii waxaad ku darsataa tii hooyada so something has to give markaas ilmihii laftiisa wax buu marka dayacaya maxaa dayacmaya hadduu yidhahdo responsibilityga hooyada qaado muxuu dayacayaa ilan bini aadam weer iskuma wadi karo you understand where we're going with this meeshan ula socono
يعني قفك ماشي لوgu talagalay mas'uuliyadii loogu talagalay hadduu ka tago waxay noqonaysaa qof kale inuu yimaado mas'uuliyadii qaado qofkii mas'uuliyadiisa qaadi lahaa tii asaga loogu talagalay inuu mas'uul ka noqdo buu dayacaya soo qof kale haddana kasii saaraya garbaha kasii saaraya soo ilmihii markaa wuxuu noqonayaa a young adult taas waxaa la leeyahay what do we say to the children qof weyn baa tahay soo ma maxaad waxu maqli weyne soo kumaan oran waxaa samee marka waqtigiisii oo adulthood uusan gaarin ilmihii ayaa waxaa laga dhigay adult so you become a parent before you become a parent طيب ilmihii marka waxaa dayacma a few things laga yaaba iskuulkiisii inuu dayacmo taxfiidkiisii inuu dayacmo yacni tarbiyadiisi inay khalkhal gasho sababtu waa ilmo isciilaya waxaanu samaynayo maaha inuu u samaynayo jacayl wuxuu u samaynaya because anaa u diray so maxaa dhaca marka mas'uuliyadii ayaa intay ka badato asagana garbihiis yaryaraa ama garbaheedi yaryaraa qaadi kari maayaan wixii oo dhan waxaad arkaysaa marka ilmihii naaw maxaa ku dhacaya depression baa ku dhacaya walciyaadu billah then waxaan leenahay why is this child marka la arkaba maqsiin buu ku jiraa gooni meel buu isku xiraa ilmahan yar yacni guriga marka laga soo galo iskuulka limaado salaanka you go up the stairs telefoon buu haysta albaabka hoosta ka soo xiranaya waay sababto marka maxaa ka badbatay usually u yeeritaankii badnaa hawshii badleed maaha in la diidayo yani ilmaha in la adeegsado caruurta waa ina siiyaa responsibility yani ayaga da'dooda u qalmaa they have to do chores soma laakiin markii aniga azamada aan mas'uuliyadeyda saaro ilmo yaroon aniga dhalay oo markii anigiiba banaanka taagan anigiiba soo shaqaynaya anigiiba ordaya why because qof baa mas'uuliyadiisa dayacay ana tiisii baan hayaa taydiiba dayacmaysa ilmihiibaan taydii saaray ilmihiina tiisiiba dayacmaysa societyga markaa saas markuu noqdo now we develop a bigger problem waxaan doonaya inaad fahantaan mushkilada maanta na haysata meeshay ka timid what is the source of our problem as a Muslim community right waanu soconaa we're trying our best qof la eedaynaya ma jirto laakiin waxaan noqonay we became a victim of our own personalities يعني mas'uuliyadii la dayacay somewhere somebody ayaa mas'uuliyadiisa dayacay oo ilaahay u weydiinaya yowm alqiyaama qofkaas mas'uuliyadiisii anagu hadda hooyooyin markaan nahay yani cadaalad darrada waxaa ka mid ah 5 caruur baad leedahay 6 caruur midba aad u madax adag kii madax adkaa hawsha loo diro wuu diidaa hadduu diido yaa loo diraa hawshiisa ya kan maskiinka baariga sooma ilmihii baariga marka maxaa lagu sameeyaa waa la dulmiyaa sababtoo ah kan maadaama uu madax adag yahay intaad maanta o dhan la gorgortamaysid baad diidaysa waqtiba uma haysid soo heblaayo cambara maanta o dhan loo yeeraya because ayadaa dhagan fudud ayadaa ku maqlaysaa taasna waxay keentaa subxaan allah yani injustice iyo unfairness ay keentaa marka societygana maanta yani in general wuxuu yani sida u yahay oon meel walba yani burburi iyo dhibaato ay noo haysataa anagina dumar ahaana maanta waxaad taraygaraynaysan your best wixii raggii iyo idinka hawlihiinii labadiiniba inaad isku qaadeen iskumana qaadi kartaanoo ilaahayba kuguma talagelinba laakiin haddana markaa la eego anagoon cidna yani eedaynaynin we're not doing yani we're just analyzing dhibaatada meeshay ka timid maaha in lays eedeeyo analysis yar baan samaynayna dhibaatada kalena haysata waxaa weeye ma isleedahay societygan saa u burbure oo dhan rag ba mas'uulka ah can we blame all the men for this may qofka waxaa la doonayaa daa'iman dhakiga ah asaga dhibaatada tiisa wuxuu geystay waa inuu eegaa si hadhowtu uu yiraahdo wallahi dhibkan anaa wadayo anaa iska joojin soo dhibaatada maxaa weeye waxaan noqonay as a society dadan waxba maqlin societygan annaga yani Soomaaliyeed waa matriarchal society we women have mashallah tabarakallah a lot of say marka waxaad arkaysaa wiilka yar iyo gabadha yar ee guriga jooga yaa wax loo diraa inanka yaa wax loo diraa gabadha why waa su'aal
ya ma dhaga nugeyl kaliyaba mise wax kalaa jira oh ya maasha allah okay dhibaatada markaana haysata waxaa weeye wiilasha yada naga cadaalad umaanan samaynin we're not fair to our boys hablaha iinamada haddaad wada fariisisid oo tirahdid hablow hooyooyinkiina waalidiintiina aad bay idin jecel yihiin laakiin wiilashooda ma jecla yana waxay hablaha leeyihiin no wiilasha la jecelay waxba looma diro samaha annagana loo adeejiyaa annagana loo cabiidiyaa laakiin khaladka the biggest problem is waa runo gabdhihiina jeceshiin wiilashiina ma jeclada sababta wiilashiina haddaad jeceshihiin dad mas-uul abaad ka dhigi lahaydeen dad mas-uul ah ayaad ka dhigi lahaydeen laakiin gabdhihiinni waxaad ka dhigteen dad mas-uul ah howlba dad idinku waxaad isleedihiin ha qabato oo wiilka u naxariiso laakiin mistega aanu samaynay waxaa weeye meel fog waxba kamaanan eegin ilaan gabadhan waxaad bartay skills waxbay karsataa you give her cooking skills waxbay todhi kartaa you give her skills waxbay soo qabsan kartaa inankii ayada la ekaa maanta waxay inantaa qaban karto isaga ma qaban karo sababta waxaan sameeyey inankayga dulmigan u geystay wuxuu yahay meel fadhiiso un baan yidhi anaa ku saafgarayn sama anaa ku saafgarayn meel fadhiiso ama aniga u kaca oo saafgareeya ama inantan ku yado saafgaree inantan hawshanan u dirayo she is building skills wiilkan meesha fadhiyana he has zero skills wiilkaas aad saa u gashay ood khayra mas-uulka ka dhigtay ayaad hadhowto inan yaroo si fiican loo soo koriyey oo mas-uuliyad yacni qof yacni mas-uul qaadaysa ah baad u dhisaysaa then maxaa laga doonayaa then asagiina haddana meel unbuu fadhiisan because skills ma barin khaladkiisa ma aha you didn't waxaad tiruun meel fadhiiso okay intaad gurigayga joogtidna aniga iyo walaalahaba wax ku siin markaad guri tagtidna dee islaantaad guursatay unbal kuu adeegi so qofkii waxaa laga dhigay qof aan waxba qabsan karayne marka is that fair or unfair cadaalad ba mis cadaalad maaha inamadana waan yani subxaan allah waan dulminay sababtoo asaga inankayga janna la rabaa waxaad inuu janno galo jannadana rasuulka calayhi salaatu wasalaam sunnadiisi weeye rasuulkana wuxuu leeyahay khayrukum liahli wa ana khayru liahli so haddaan doonayo inuu rasuulka ku daydo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ehelkiisa buu ogaa no matter how many every house eheladiisa buu ogaa yacni garasho buu lahaa qofkan maanta miyuu baahan yahay muxuu doonayaa yacni khidma he used to give service to his family asagoo ilaahay wejigiisa wax ka raba so inankaaga maanta maad barin war ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisi haddaad ku dayatid jannada waad la gelaysaaye rasuulkana wuxuu yidhi khayrukum liahliye the best of you is the one who's good to his family I'm going to teach you how to be good to your family how to give service khayru nasi anfa'ahum linnas so the best of people are those who give service to the people طيب so inankayga waa inaan baraa inuu kici karo inuu marti soo dhaweyn karo gurigiisa inuu mas-uul ka noqdo inuusan marti noqonin laakiin uu noqdo host yani wax soo dhaweeya ayib laakiin haddaan la yiraahdo marti gurigaaga ka noqo do you know what that means gurigaaga markaad marti ka tahay martidu maxay samaysaa ya dee meesha la fadhiisiyo unbay fadhiisataa sooma gacmahana way iska labtaan dee wixii la siiyana dee way iska cunaalaan way iska cabaasamaan ayib waa intaa un marka gurigaaga adigu marti ma ku noqon kartaa waa may yacni qofku waa inuu leeyahay kalsooni yacni inuu gurigayga yahay hadduu adeer ii yimaado iyo hadday eedo ii timaado iyo hadday habare ii timaado anaa u kacaya I am the man anaa u kacaya anaa soo dhaweynaya anaa fariisinaya so gabadha yacni wiilkaas uu qabo ayada lafteeda she respective ixtiraaminaysaa way ka dambaynaysaa because waa qof asagaba isdiraya laakiin qofka haddaa la yidhaahdo un waxba ha qaban maxaa noo keenay the highest level of divorce rate gurya maxaa keenay
I'm not saying ملهي ورقو أنت تكتان يعني ما أنت مطبخ وضقال وقري وحكرية if you do it it's good لكن I'm not saying that لكن محال ورنيا يعني قري قاقا إنت مسؤول كتا أنا قو بابا نو أرقنا نين قري جيسي إنتو مطبخي سقالو وحكا سوقاتا سمع لما تشير هدو مطبخ قالوا محانو لنا يا لما تشير هدو مطبخ قالوا وحكا سوقاتا سوق ودونيو محاني رهنا we have names for them سمع we have names for them sidee u dhacday markaa wax kasta oo wanaagsan inaan fool xumayno wixii foolkuna inaan yani quuxino how is that possible حتى waqtigan la joogo ma waqtigii hore mise hata waqtigii hore yani people my age when we were younger aabbayaashay oo kale dadka waxay wada degi jireen degaan sama yani community yar baa la degi jiray odayga laga yaaba maasha allah he has several houses guryo halkana islaam baa joogta halkana mid kale joogta halkana mid kale yani asagu wuu dhex fadhiyaa caruurihii iyo islaamihii buu yani there was a family unit sama okay caruurtiisa marka wuu arkayaa kan wuu u diray wuxuu leeyahay okay geela raax tan waxaa la leeyahay ariga soo yani dadka they had responsibilities maanta waxaa lagu wada jiraa homes and apartments sama lama wada joogo so what do we do now caruurtiinina waxay arkayaan de in technology right maanta waxaan maraynaa age of technology and innovation subaxa ma ku shaqaynaya robots and all that haddaana diyaarinin ilmahaaga oo mas-uuliyaddii ilaahay uu saaray aanad barin gormuu baro hooyooyin mar walba aniga I talk to you guys idinkan idinla hadlaa mar walbana waxaad idhaahdaa haddii inamadayadu ay noqdaan dad khayr mas-uul ah cid kale lama weydiinayo lan annaga korini soma we raise them haddiise hooyo kasta ilan ayadu mas-uuliyad baa la saaray and sometimes it's not your fault sometimes adigu dembiga ma lihid waayo qofkii kale ee mas-uuliyaddii guud sare lahaa ma joogo tiisi baad marka adigu maxay ku samaysay tiisi baad hadda haysaa taadi yaa ku hayaan dayaca noogu weyn maanta adduunka waxaa weeye hooyooyinka waxay hayaan mas-uuliyadihii aabbaha wuxuu noqon karaa ama aabba dhintay ilaahay u naxariisto ama aabba la kala tegay ama aabba maqan ama aabba joogo oo laakiin aan joogin yani waa dynamicska waa different right hooyadii marka iyada mas-uuliyadda saaran waxaa weeye ubadkii ma dayici karo so she's trying to juggle waxay isla qabanaysaa so many things dhibaatada markaa societygana maanta saa u galay waxaa weeye qof walba stationkii yani waad garanaysaan dagaalkii uxud rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadii markuu buurta saaray muxuu ku yiri what was the information given to them no matter what happens meeshaan kasoo tegina sooma why taskii la siiyo waa adinku meeshaas that you stay there because waa loo baahan doonaa rasuulka wax buu arkin he saw Khalid bin Walid iyo his army at the back of the mountain halka ha kasoo degina walow yatakhatafna tayr ha soo degina baa la yiri okay yani guuldarada ama rasuulka iyo saxaabada oo yani when they lost the battle maxaa keenay to lose the battle disasterka maxaa keenay amarkii mas-uuliyaddii la siiyey meeshii la yiri jooga bay ka tageen so there's a problem right adduunka waxaa weeye hadda qof walba meel la taajiyo la yirahdo waxa adigu meesha hay haddaan meeshii ka tago waxay noqonaysaa marka waxa la yirahdo domino effect ripple yani effect bay yeelanaysaa hadduu qofka meeshiisii ka tago wax kale yani wax baa dayacmaya marka su-aasha meesha waxaa weeye guriga yaa hoggaan u ah who is responsible for the house that was the n1 soma so xadiidkii markaan egnay kullukum raacin markaa la yiri that means everybody is responsible for something somaha everybody is what responsible for something the husband is responsible for something the wife mas-uul bay wax ka tahay caruurtii waxbay responsible ka yihiin community waxbuu responsible ka yahay
one of those people hadday mas-uuliyadooda ka tagaan oo meeshii ay faaruq noqoto maxaa dhacaya markaas? That's where the problem comes. meeshii meel bannaan bay noqonaysaa, meeshaasaa nagala soo gelaya markaas, burburka meeshaasuu naga soo gelaya. yacni militarigu in the army waxaa jira generals, waxaa jira foot soldiers, waxaa jira medics. yacni militarigaas dhan ee socdaa waxay leeyihiin wax kariya, waxay leeyihiin dakhaatiirtooda, waxay leeyihiin kuwooda madaxda ah, waxay leeyihiin paratroopers kuwa diyaaradaha ku socda, waxay leeyihiin kuwa neviga badda wax ka soo duqeeya, waxay leeyihiin foot soldiers. qof kastana waxaa laga doonayaa meeshiisa inaan laga soo gelin. You see that? So adigu meeshaada hay weeyaan. gurigu waa dowlad. yani the home is a system. was system of hierarchy, kala sarrayn, kala dambayn. aabaha ama ninka, he is the head. meeshaasaa lii adigu waxaa tahay reerkaasaad mas-uul ka tahay. alrijaalu qawaamuuna cala nisaa. annagana waa inaan accept garaynaa qawaamada asaga la siiyey. ma adigu inuu kuleeyahay inuu kugu buli karayo maaha, laakiin waa wax ilaahay u dhiibayo aakhira la weydiinaya. example yar baan idin siinaya. haddii ninkii la yiri reerkaaga, hablahaaga, xaaskaaga, caruurtaada yacni diin xumo guriga yaana ka muujinin for example, ama xijaab la-aan yaana bixil for example, oo hooyadii ay intay makeup ismariso, ishagaajiso, oy tirado albaabka ka baxaysa, uu yirahdo kama bixi kartid, so meesha dagaal kama dhacayo. habeenada aroosyada aanu leenahay maxaa dhaca? kama hadlay anigu yacni dadan xijaab ku xirnayn, waxaan ka hadlayna gabdhahina xijaabka xiran. habeenada arooska maxaa la sameeyaa? let's be real. runtan yani subxaan allah, quluu qawlan sadiidan yuslix lakum acmaalakum. haye maxaa la sameeyaa? what do we do? ninkuu cel awdsanaha. haye gormaa la baxaa? habeenkii markii cadceeda dhacdo we leave. okay, hadduu ninkaa yiraah oo you can't leave, your husband says you can't leave at that time, maxaa dhacaya meeshaas? ha dagaal sama dhacayo? okay, asaga waxaa la yidhi reerkaaga waa inaad mas-uul ka tahay. adigiise mas-uuliyadda asaga ilaahay uu dusha ka saaray, you refuse to support him, muxuu qaban karaa? dhibaatada meesha ka imaanaysa waxaa weeye we need to help each other in order to go to the Jannah of Allah subhanahu wa ta'ala. if the person says don't go out at this time and it's not helpful to us to go out at that time, we shouldn't. laga eg anigu waxaanu eegnaa ninkaasaad dhegeysanaysa weliba Soomaali haddaan nahay. allah haddaaba tirada maanta ma bixi karo, saaxiibadabaaba ku soo wacday, markaasaad tiri adeer raali ahaw, my husband refused. ninkaygii waa diiday maanta inaan baxano. imisa magac baa lagu yeelaya? yeah, how many names? way caabudaa, way ka dambaysaa, yani subxaan allah. wuxuu qofka fahmi waayey, you're not doing this for this man. it's not about the man. yani haye haddaad tirado yaa dhegaysatay allah subxaanahu wa tacaala. ninkan ilaahay maaha, laakiin ilaahay wax buu i faray. wuxuu yidhi taacatu zawj waa amar sama, inaan aswaajiteena adeecano. so amar rabbaaniya maaha. maadaama amar rabbaani aan la imid, makhalad baan sameeyey. so qofka igu cambaaray igu cayad muxuu keenay markaas? bimacnaa amarka ilaahay buu diiday. that's the situation. ayib marka yani meel dhow waxba lagama eego, meel fog baa wax laga eegaa. guryaheena hagaagooda iyo dhismada, yani inay can we say that? sometimes I lose my Somali. yani they continue to thrive. guryahani waxay ku xiran tahay inaan ilaahay ateecan. ateecada ilaahayna waxay ku xiran tahay ilaahay wuxuu amri bilmacruuf. I have to listen to my spouse. I have to listen to you. waa kafka markuu yahay qof asaga laftiisa wax fahmaya, qof diin leh, qof cilmi leh, qof ilaahay ateecaya. if you have that kind of a husband, it's good to listen to them. dhibaatada marka meesha waxaa weeye gabdhaha su-aalahay qabaan axkaa waxay leeyihiin ustaada ninkayga diinba ma yaqaano, soo ma way jiraan. the question is why did you marry him? waa su-aal.
qofkaas aad og tahay inuusan diinba lahayn sabarta markii horeba aan anigu yani I went and I married them. What was the reason? laga yaaba in lay dhisay anoon ogeyn, laga yaaba aniga markii horeba I didn't understand diinba maan ogeyn, hadda wax fahmay soo ma jirto. Different situation baa jirta. So different situation ka jira waa inaad hadda maadaamaad ilaahay diintiisi fahantay asagana u duceey oo xataa ilaah wax fahamsii, laakiin ha oranin kan waxba mama yaqaanay maxaan ka dhageysanayaa. We don't say that. طيب حدوث كو أمره وح خلط عاد سمعنا. Do you accept it? نحن أورنا طاعة زوج لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. We don't obey somebody to disobey Allah سبحانه وتعالى. ما سمعنا يعني قف ما أدعينا إلهي سبحانه وتعالى كو عاسنا إلهي كو أنا سبحانه هذا سجى أدعو إلهي بنكو عاسنا. It's not allowed. marka walaalayaal sheeko leer inaan sheego maha. Sometimes hadalku waa la soo yara gaabiyaa. dhibaatada maanta la haysata xagee ka timid? Simple answer, dadka meesha la joojiyey mas-uuliyaddii la saaray baa wada dayacane. qof walba wuxuu doonaya qofka kale maanta maqan inuu mas-uuliyaddiisi qaado, and it is too much for us. way nagu adag tahay. ayib maxaa markaa tala ah? horta inaan ilaahay u noqono kow. wixii hore u tagay waxba kama qaban karno, laakiin mid baan samayn karnaa. caruuraha maanta aanu haysano ee yaryar, because I'm a teacher, I deal with the children every single day. caruuraha yaryar wiilasha gabdhaha maanta aanu hayno oon mas-uulka ka nahay waa inaan skills badnaa, life skills waa inaan barnaa. waa inaan barnaa inay noqdaan mas-uuliyad qaad. berigii hore gabdhaha waa la bari jiray mas-uuliyad, bimacnaa waxaan oran jirnay gabadhu waa la guursan doonaa, soo hadaa la guursado hadhowto si ay gurigeeda uga adkaato waxbaa la bari jiray sooma. hadda caruurta iskuulaad bay tagaan sooma. Okay, we take them gawaari, we bring them back home, we don't teach them to yani ayagi iska daa inamada hata hablihii baba dayacal. maxaa tala ah? hablaha iyo inamada labadaba in diinta ilaahay la baro, in caqiidadooda la toosiyo, in ilaahay baa loo noqon doonaa yani maalin walba yani wax yar loo sheego, in qur'aankaas madaxa looga garaacayo inta laga dayo qur'aanka la baro, macnihiisa la baro, in lagu tadabburo as a family, in la yiraahdo ilaahay waxa uu ka rabaa, right? in la baro sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam, in la yiraahdo yani dhaqanka guriga la baro. ilaan gurigoodu waa meeshay wax ku baran lahaayeen. ma guri kale wax ku soo baranayaan? Charity begins where? At home. Charity begins at home. ilmahaaga wuxuu gurigaaga kala tago unbuu meel kale la tagaa. marka waxaa weeye Swahiliga maxay yiraahdaan siyafunza na mamake kufunza na ulimwengu, right? marka waxaa weeye ilmahaaga tarbiyadda rabaayadda it's in the house. aabbuhu waa inuu noqdaa aabbo mas-uul ah. aabihii dhibaatada maanta na haysata dhinaca raggana waan sheegi, dhinaca dumarkana waan sheegi, so that we're all fair and we're not blaming somebody. waxaa laga daadiciyey raggeeni, our husbands, our brothers, our sons, waxaa laga daadiciyey adiga mas-uuliyadda ku saaran waa dhaqaalo keen sooma, soo shaqee. alxamdulilah, they do it. but waxay mudeen mas-uuliyadda ilaahay uu weydiinayo keliya inay tahay financial support. samaha maanta haddii ninkii subxaanallah uu leeyahay wiil yaro 10 jira, 7 jira, 8 jira, habeenkii oo dhanna uu maqan yahay, cafeteria waa la fadhiya, waa la sheekaysanaya. dadkeena maasha allah, we love the high life of being in restaurants and socializing. wadad waxaanahay very social beings Soomaalida nahay. so ninka wuxuu rabaa maanta dhan inuu sheekeeyo, ama sheekadaas ha noqoto de mid yani asaga iyo asxaabtiisa shaqadiisa khusaysa, ama ha noqdo mid fadhi ku diri, right? doesn't matter. yani marka intuu maqan yahay muxuu ka maqan yahay? laga maqan yahay caruurtii baa laga maqan yahay. caruurtan dhaqsay u koraan. I was a teacher for 30 years. 30 sannadood baan wax dhigayay, primary level, secondary level, high school, university level, in different capacity. ilmuhu dhaqsay u koraan.
maanta xataad ilmahaaga waxay u sheegeen ilan every single day ilmahaaga markuu iskuulka tago wax buu soo arkaa haddaanad weydiinin maanta maxaad soo aragtay yaa kula soo hadlaya oonad la sheekaysanin subxaanallah there's a man who was a parent discussion baan ku leeyahay iskuulka aan ka shaqeeyo wuxuu yidhi anigu aroortii ayagoo jiifana waan ka tagaa cafwan ayagoo hurdana waan soo noqdaa marka waxaan ku yidhi okay why waan shaqeeyaa soo su-aal baan weydiiyey shaqadaad qabatid ma adigaa iskale mise qof baad u shaqaysaa because qofka haddaad u shaqaysid you clock in clock out yani qof kale timetablkiisaad ku socotaa markaad shaqaalo tahay markaad choice ma lihid haddaa lagu yirahdo 3am kaale waa inaad 3am tagtaa laakiin qofka asaga shaqada hadduu iska leeyahay businesskiisa uu yahay waqti wuu iska goyn karaa sooma wuxuu oran karaa 1 hour kan I'll take 1 hour break schoolkii baan tagaya I just want to go see my child caruurteeda baan soo eegaya habus masiicantiin yiniin okay khalaas waan soo carari kala galabtii salaada maqribkaan la aadi karay I can just pray with them sit with them I can make time because it's my time anaa meesha boos u ah marka su-aashan weydiiyo waxaa weeye boos miyaad meesha u tahay mise shaqaalaad u tahay waxaa boos baan ahay waxaan ku yidhi markaa 5 o'clock in the morning markaad masaajidka sii tegaysid haddaad masaajidka tegaysid wiilamadaada soo kacay sii jaf take them to the masjid drop them off at school maybe 5-10 minutes ka la sii sheekayso ayagu intaasa wax u taraysa sooma caruurta intaasa wax u tartaa caruurta yani they are not looking for quantity of time they are looking for quality of time 10 minutes every day haddaad la joogtid waxaan dhegeysinay sheekh maasha allah ilaahi jannatul firdaws ka waraabi wiil sheekh cabdiraxmaan la yiraahdo and from UK markuu ka sheekeynay aabihiis yani waxay leeyihiin madarasa umariya cabdiraxmaan xasan xafidahullah wuxuu yidhi every day aabahay buu yidhi and he's talking about waa nin caalim ah asaga laftiis maanta ciyaalkiis maasha allah ilaahay u barakeeye ay meel yani cilmiga meel fog ka gaareen ayagoo yaryar laakiin something he said yani touched me wuxuu yidhi aabahay in the morning markaanu baxayno intaanaan iskuulka tegin unasi yani in yar buu nala fariisan jiray wax yar buu noo akrin jiray right markaan galabtiis wax buu nagu sii shubi jiray marka galabtaa iskuulka ka nimaadnana he used to be at home waxaan nagula soo shubay gaalada nagu soo shuben buu naga sii shubi jiray waa intaas yani a little bit here and a little bit there impact ay intaa ku leedahay ilmaha you can't imagine okay hooyooyin haddii aabihii meesha uusan joogin ama tii rabbi ay u timid ama la kala tegey ama la kala maqan yahay waxaad arkaysaa the scholars of the past markaad eegtid yani a'immatul arbaca look at them they were raised by single mothers meesha waxaa la doonayaa uun waktigaaga inaad ilmahaaga gelisid mas-uuliyaddu waxaa weeye timekaaga ilmahaaga geli tayib sometimes laga yaabaa anagoo hawsheedu ay badan tahay oo gurigii ka fakerayna waxyaalo fara badan ka fakerayna ayaa haddana hadda timekaaga calculate garaysid saacada kuu soo baxaya empty ah saacadahaasna laga yaabaa in asxaab aan la fadhinay gurigaaga ay jaarkaaga intay ku imaadaan sheeko lagu sheekaysanayo guryaha qaar waxaad wadaysaa clinic waa la wada fadhiya every single day I always say this marka waktigaagii aad caruurtaada gelin lahayd meel kaley gelaysaa ilmihiina da'dooda yani kuma sugayaano they're growing so maxaa tala ah we're in a very difficult position somaa dadkeena maanta insha allah ilaahay naxariistiisa kama quusanayno laakiin waxaa weeye we have to do things differently yani Einstein wuxuu yidhi insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results يعني وش بان maanta dhas waan ku noqonay we go back yani nothing changes waa inaad adigu situation ka change garaysid so change the way you see things change the way you do things and the things you see or do will change waan isbedeli karaa sama maanta imisaale caruur under the age of 14 intiina meesha fadhida how many of you have children under the age of 14 waan badanay maasha allah tabaaraka allah okay caruurtaas weli waxay u baahan yihiin a lot kuwa 15ka teenagerska u badan inkastoo caruurtu tarbiyadooda ay kala tahay maadaama da'dooda ay different tahay isku si laguma wada tarbiyeeyo
annaga mushkiladan haysato waxaa weeye xataa inaan kala baranno agekan sidee loola hadlaa agekana sidee loola hadlaa because isku siban wada hadalnaa ilmo 16 jira iyo ilmo 10 jir ah we talk to them the same way kana sidii waa lagu qaylinaya balaag 16 maalintu gaaro inankaaga waa nin raga he's a rajul you have to treat him like a man 14 markuu gaaro ayaa waxaad leedahay mas-uuliyad baad saaraysaa by 16 if you can teach him to drive let him drive mas-uuliyad hooya kasoo alaabta soo qaad groceryga soo iibi dukaanka wax ka keen yacni waa inaad bartaa marka how to be a responsible man laakiin waxaa leeya war waxba ma taqaanida naga fariiso imisaa sanadood baad ku oran doontaa maalintu 18 jir haddaad tirahdid waxba ma taqaanida fariiso afwan dee wuxuu soo arkayaa qof aan waxba aqoonin annaga baxa dilna caruurta so let's not do that mas-uuliyadda markaana saaran maxay tahay awalan ayay saaran tahay yaa meesha qudwad yaa laga dambeeya horta awalan we need to talk about this haye who the father if he's there soma the father is the caretaker is the responsible for the family if he's there yaa ku xiga markaa and hooyada what is her job what is her job egg let's not get this wrong waxaan kala saaraynaa two things aniga I'm not talking about the business kaaga dukaanka aad leedahay shaqada that's different those are secondary things waxaan ka hadlaynaa primary yani responsibility oo ilaahayna weydiin doono that's what I'm talking about because sometimes marka leedo hooyada waxaa leeyahay guriga weynay joogta caruurta ilaalisaa a lot of us have the wrong mentality caruurtaas qof kale oo dibadda uga imaanaya oo ilaalinaya ma jiran adiga ahayn hadda yaanu dhiibnaa let's be honest yaanu dhiibnaa okay shaqaaluhu yuu yahay ma qof muslima mise qof gaala ila Nairobi baan joognaa haye waa gaal haddaan idhaahdo maanta qof gaala ilmahayga ii tarbiye ma ilmo muslim ba ii soo baxaya may anagu waxaan moodaynaa we're thinking ilmahan in yani shaqaalaha noo shaqeeya dhulkaas ay meerayaan iyo dharkaas ay qasaalayaan iyo cuntada la sameynaya keliya may ilmahan waa la ta'thiirinaya ta'thiir oo caqadiya oo caqiida ah baa lagu soo yani way dhegaysaan ajalan radiogooda dhan bay dhegaysaan Sundays hymnskooda ma maqashaan idinka kaniisadeedii haysiisa bay dhegaysanaysaa okay ilmahagi bay u sheekaynaysaa adiga ma joogtid yaa waxay u sheegtay iskuulka sooma geeyaan ama driver baa geeya gaala ama waxaa geeya shaqaalo sooma intay sii socdaan waxay ku sii shubeen yaa og do you know are you aware garan mayse waxyaalaha fasaxaadka keena waa waxyaalahaas aan hoos loo sii eegin mas-uuliyadda markaanu dayacano dhibaatooyinka meeshay ka yimaadaan waxa weeye because I was not on watch meesha laygu talagalay shaqaan tegi kara yes I can make money yes I can be a teacher yes I can be a doctor yes but I am also my objective my primary goals is I raise a righteous Muslim child وإن صو يعني سبحان الله كوريا ilma ilaahay ku xiran qalbigiisa uu yahay yani caruur mucallaqiina bilmasjid salaata ku xiran how do I do that taas waa howl anagana sugaysa marka mas-uuliyadeenan dayacil lama diidin inaad sheekaysataan lama diidin social yani network inaad samaysataan nobody says you can't do that laakiin hadday social networkkaaga ama yani friendskaaga ay kaa qaadayaan mas-uuliyaddii ku saarneyd oo dayacaysid waktiga caruurtaadii then your friends are not doing you a favor aabbayaashana waa in loo sheegaa odayaashan lala sheekaysanayo oo makhaayadaha lala fadhiyo waxay ka fogeynayaan yani connectionkii ay ilmahooda la lahayeen ilmahan uu koraya hadhowta aabbihii iyo ilmihii isma way fahmayaan they don't understand each other because dad sheekaystaba maaha marka asaga waxaa khayr ugu jira thawaab ugu jira ajar ugu jira aakhiradiisana jannada u sahlaya inuu ilmahan yani markaad eegtid qur'aanka anytime laga hadlayo tarbiya iyo awlaad rag baa lala hadlaa yani allah subxaana wa tacaala wuxuu ka hadlaya nabiyullah yuusuf calayhi salaam iyo abiis soo maha wiilkaa yaree yuusuf calayhi salaam يعني habeenkii uu riyooday usually caruurta markay yaryar yihiin
if you have a nightmare dhibaato hadday kugu dhacdo markaad indhaha soo kala qatidaad u orataa hooyada. But you see there's a different kind of a relationship. يا أبتي إني أرى في يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. He told it to his father. إبراهيم عليه السلام إلهي بالله الله أمك إسماعيل فلما بلغ معه السعي يا الله إبراهيم بالله يعني يويلكي سوى father child. طيب the only place يعني هو لسوق هذي in the Quran in terms of وأوحينا إلى أم موسى تاسلم معي هاد أنا أرضعيه. She has to feed him, right? But when it came to look at لقمان عليه السلام يا بني أقم الصلاة يعني when it comes to تربية الأولاد the responsibility is in the hands of the fathers. أيجنا آخرة لو يدينا يا مشان it's not a competition ربي الدمر يعني it's not a competition. قفهم وإنه بقاء يرحضة وإلهي محل هرتجيا محا هلو تأنيق المسؤولية دي إسعارنا اللي ويدينا يوام حي. So مسؤولية دي إذا as a mother شقالنا وقمتكي كارو نمكن وقمتكي كارو السجنة مسؤولية دي as a father حاسكنا وقمتكي كارو شقالنا وقمتكي كارو. Everybody has to do their jobs. قفوا بوينو شقالي سي قمتها مركا ما أنت ما كان قريها نقول نقولنا information كان وين البروسيس كرينا مسؤولية أنا إسارن كهوية أحن هدوب زوج كبيرة شو قوام حي وإن حتى نفريسنا we have to talk we have to discuss. دبعت هذا مركا مش يعني some of the problems as a counselor that I come across we don't talk to each other. Spouses were rare that كنا إن نوضح حضلنا ونكوضح حضلنا وحيالها حاجاتين يقولي هيجا. So I can't go to my husband and sit with him and say, you know, Abu Fulan, Zawji, Habibi, whatnot. We need to do A, B, C, and D. Asagana iman. Ani makan galawatu haliya he wariya. That's how I start my conversation. Once I start my conversation that way, mahada aya. Mahal usari orta. Reject. Because manta, أما معلن هالنقضة أما صاحب حدو قفك يعني هذا الحبونين كوب بلابو قلبك is it open for that person? No. إلهي وحلي وقولوا للناس يا حسنا. You know when you're speaking to people you have to speak with them beautifully. You start the conversation well, right? قفك لغي يابا ما شاء الله حتى وحنبرا نيبريحان oh she's narcissistic or he's narcissistic. We use these terms very loosely, right? لكن قفك حتى إلهي أتكتت صلاة الليل تكتت إلهي بردت إلهي قلبي سيسوت يعني يصوتن يعني إلهي يوم ما شاء الله make him يعني إلهي وكو عبيدنا قفك وقتها because إلهي بتكاشتي مد أورد لي بتكاشتي أسكنا كذلك ويكوكو ما ضحت كاتي صلاة الليل بتكنا إلهي والله قفك حتى وناك أسميست إلهي سبحانه وتعالى مقولي ادفع بالتي هي أحسن. You always have to be the better person. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هركا سياقارة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذي حظ عظيم. Yes, you may have a difficult, complicated husband or the husband can have difficult, complicated wife. لكن إماشان هذا إلهي سبحانه وتعالى لكاشته. صبر كان الله بدي وحي يسكح حقاقا in the end. marka walaalayaal oo sheekada aad baan ku dheey iga raali hada meesha marka waxa weeye waxaad sugaysan mas'uuliyadda haya ninka mas'uul ah and then we leave everything samaha kullukum balira'i. The hadith says every single one of you has responsibility gaaga hadaad neglect garaysid dhibaatada meesha say ka imaanaysa markaas as a society we collapse and waan dumayna markaas. So إلهي سبحانه وتعالى هنقدقوا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلهي هنود بدافو إلهي قريه يحكدقوا قريه إسلاما. إلهي سبحانه وتعالى لقوا عبده تن اسمق لا أو كلا دنبيا كورتا كلا دنبيتو is an art وإن برنا كلا دنبينتو it's an art and we have to learn that art of كلا دنبين. يعني إنه قف كان نقوم كارو كاسرين كارو ما ها يكسرين in a bad way just in obedience. سبحان الله
markay aswaajda zawj markay kala dambeeyaan oo ismaqlaan waxbaa hagaaga markay isku page yihiin waxbaa hagaaga mushkiladda waxaa weeye qof walba markuu different direction u socdo asagoo isu arko inuu yani qofka ugu caqli badan u yahay then that's a problem يعني رجل هنا إن أورانين ده تمرك was كنا قصات العقل والدين I don't think we really understood the meaning of that right أنا قلنا عن الوحن وحبابا ما يقعلانه وأنا قلنا عن يعني وحي نوشك عم بوخ كلي opposite عن سمعينه أنا قلنا سر بدن الله تمر هدان الله سما سرتنا بدن لكن الدعاد لماذا وانا أكسن فكينو الدعاد نقضو يعني وحو إلهيك وأجه نقو don't hide أنا قلنا مينيسان بنقريه نسوقلنا because already waxa lagu leeyahay waxaas kugu dhici doona maxaa la yiraahdaa iska sii ilaali yani waxaad gashan tahay marka protective vest iyo waxaad dagaalba diyaarba u tahay ma waxaaga qarso yani colbad adoo hata guur u socda waxaa laga dhigay qof yani jihaad ama col u socda taa waa in la joojiyaa caruurta waa in la baraa wanaag yani subxaan allah qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lana waxa nagu dhacayaan ma jiraan ilaa wuxuu ilahay xataa qofka hadduu ku khiyaaneeyo isaga akhir la weydiinaya sooma adigu maxaa kaa gal khiyaanadiisa maxaa kaa gal ilaahay baa la xisaabtamaya waxyaalaha shaqada ilaahay yani aakhira dadka ay ku sugayso iska daaya so don't be overly stressed waxa kala qarinina just be honest waayo qishiga badan dhibaato badan buu keenaa lack of trust buu keenaa man ghashana falaysa minna buu yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaaha illa anta nastaghfiruka wa natuubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم Nabasheda iyo biidan dagaalamahayli hortigii medaj aytaw kalsoom nariya shaqaalihii tiji kitayemena da jiitaas aldalab jiyaits te 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 chitibe tes te an ياتيك شكتي لا أيه makasri wait to pistole pattere masiki ni pile ni tette bovi حسبي الله sikis si da dalia kelli ikide boccosi di campsis vedete ma per gli abbancina e se può si حسبي الله ونعم الوكيل جنتي de antelma de tiside adense opti lavo mrusa motte kasal de abie sababa mana anada iyenna takila ala ile biles kekitiya وقدر وباه هنا سي استاد إلى عبرة أدباس بقى أقوى صح تبا هذا الطن بيوس كيلتا دعنت لتشي وسيل باريس لولتشي شغالي دب تساس صح بريل ساي هي كتي صح كسكا بلامش عرف ستا شي صح قد صح 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 واو أيه إيه صح mana volke ki ice cake see the bed really Jesus
صح صح صح. سبحان الله. جزاك الله خير ما يستمع منها. بسم الله الحمد لله والثناء لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إيكا النقشن ولا شيء يعني dhibaatooyinka jira dhibaatooyinka jira waxaa weeye horta dad fiican baanu nahay aaminad goobta inaan iraahdo qof walba yani dad xun baa tii maaha dadku dad fiican weeyaan dad muslin weeyaan dad qalbi wanaagsan weeyaan laakiin fahamka waxyaalahaasaan u fahmnay baa qalad ah marka waxaa jirta mafaahiim yanbaqii an tusaxax waxaa jira concept baa jira u baahan in la saxo caruur waanu dhalnaa and we like 8 baan jiidayaa 7 baa la jiidayaa 5 baa la jiidayaa laakiin markii caruurtii la dhalo caruurtii waxay u baahan yihiin tarbiyad soo ma tarbiyaddu meel fog ilmo kama tarbiyan karaysid they have to be right under you marka tarbiyanaysid bimacnaa waa inaad foojigan tahay eeg maaha hooyadu gurigana waan joogaa mana joogi gabadha amina waxay sheegayso anaa indhahayda ku soo arkay xaafadan markaan magacamada u soo socday lama caruuro yaryar amshuuc aljaziira iyo dhinacan bay ka soo baxeen xaafad aljaziira 4 caruur bay ahaayeen 4tooduba way kala socdaan gabadha shaqaalaha wada waa islaan wey oo mukaamba ah marka waxay samaysay telefoon bay ku hadlaysaa iyada caruurtii waa caruur yaryar 7 jir 6 jir 8 jir that age group gaariga kama ilaalinayso wax kale kama ilaalinayso markaan soo aggaari waan daba socday baan ku yidhi caruurta maad ilaalisid telefoonkii bay jeebka gashatay horta mid bay gacanta ku dhegtay anigu waxaan mooday inay gacanta iska hayso sideeda la soco ilaahay amarkii gadaalun baan u eegay ilmihiyo saa u socda jeejeera ilin gacantii bay haysaayo way buquujinaysaa gebigiisba dib baan u noqday haddana aan ku yidhi maxaa ku dhacay ilmaha yara saa u cadaadinaysid waa maxay hadalka igu tiri waan ka naxay waxay tiri maama anigu caruurtan ma arkaysaa 4 wiilkan yar kalee baan u shaqeeyaa reerkooda halkaa wiil baan mas-uulka ahay 3 kale markaan ka soo degayo liftiga maadaama ay iskuul yihiin albaabka intaa loo furo la yaradaa naagta raaca okay ya hooyadii markaa ilmaha dhashay xagee jirtaa she went back to bed ana laalabay tiri way seexataa ilaahay baad ku dhaarshay ilmahaaga qof shaqaale ah oo qof kale u shaqeeyo intaan u san ugu aaminay intaan u sii dhiibo oon wadooyinkaas oo dhan kala soo gudbo oon iskuulkii u geeyo yacni safetiga ilmahaaga ma garantiba may laakiin anagu waxaas big dealna lama aha wax weynna lama aha maxaa ka macnaa masala sama erayada soomaalida ku hadlaan maxaa ka macnaa it's okay kalakatu okay ilmahaaga waa lasii boqojiyey waa lasii dilay waa lasii caayay waxbuu meesha ku arkay markaas asagana islaanta u caayay aflagaado waxay tiri maalin walba wuu caaya wiilkaya wewe si anti yangu anti yani shaqaalahayga ma tihid so waxay tiri waxba kama qaban karo oo wuxuu leeyahay shaqaale iima tihid waana runtiisa shaqaale uma ihi dhinaca kale tii dhasheen anay igu soo diibtay yani albaarkun bay ka furtay waxay tiri raax so ya khaladka yaa iskale so waxaa weeye hooyo muslimad ah oo asturan oo xijaaban oo liqaaban oo madrasad tegaysa ilmahaas ma ilmo muslim buu noqonaya okay adiga saad isugu dadaalaysid naftaada iyo dugsigaaga ma dimaaga ugu dadaashid right weliga iyo allaha mas-uuliyad adiga ku saaran qof kale looma dhiibo it's your responsibility soma ilmahayga maxayga tari adaan gacanta qabsada eeg hadduu qofkaa shaqo tegayo dhakhtar baa tahay you have to be at the hospital waana wax kale dhibta haba noqotee bal gurigii baad joogtaa
أنا waxaan arkay gabar yar, she's 9 years old, driverkii baa laleeyahay caruurtii soo qaad, driverku muslim ma aha, so ciyaalkii maxay sameynayaan way fara ka cayaarayaan, la kala you know, like explain with them. Okay, gaari yar baa lagu soo wada yani jacburiyay ilmihii oo dhan, she's sitting on his lap. That's your 9-year-old daughter, right? Ma sheeko, it's a reality. waxyaalahan sahlanayno long term repercussion dhibaato bay leedahay. maanta weliba casrigan la joogo qof laguma aamino ilmahaaga, right? waxsigana waa la iska ilaaliyaa, waxsiga waa la iska ilaaliyaa, because haddaan hawshan qof kale u dhiibo anigu maxaan hayaa waan fadhiyaa sooma, sariir baan saarnahay, telefoon baan ku hadlayaa. Is it really that important? Okay, ilmahaygi wiiga tagay school buu matagay, waa baan geeyey, waan soo noqday, telefoonkii baan qabsaday, maanta dhan waan sheekeynayay, anoo sheekeynaya buu ilmihii albaabka iga soo galay, wuxuu doonay ilmahan inuu kula hadlo. Okay, ma doonaysid disconnection inaad ku samaysid because somebody very important baa meesha ku jira, oo maanta hadda telefoonka iska dhigtid dee noloshaada dhan baa baaba'aysa. I'm just joking. ya markaas ilmihii leeday warka xalkaa fadhiiso isug, hadda saakoo dhan buu kaa maqnaa. Okay, qofka waa la hadli kartaa, there's nothing wrong with talking to somebody, laakiin ilmahaaga iyo zawjkaaga labadaba albaabka markay ka soo galaan, nobody is that important. hooyada malaha, and even she waxaad odhanaysa hooyo waa laysoo gala iga raali how I'll call you back, you hang up the phone, meel baad dhigaysaa, hawshaadood qabsanaysaa. laakiin telefoonka ma dhigayo, ilmihiina hadduu iskuulka soo galay, qofkana leeyahay chukuwaya iyo peleka valisha lalisha baan leeyahay, taas waa mas-uuliyad daro. dhibaatada meeshay ka bilaabatano meeshaas. yacni waxyaalaha jira as a counselor meeshan kama sheegi karo, I can't say it, laakiin waxyaala shocking ah oo la yaabaysid baa xafiiska idin yimaada, oo la leeyahay gabadha shaqaalaha she did this and this and this and this, because telefoonadooda markay ilmuhu uu dhibo maxay u dhiibaan, telefoonkii bay u dhiibeen to babysit, ilan adigu ma joogtide, haddaad joogtidna waxbaad ku mashquulsan tahay, wuxuu u dhiibay marka telefoonkii sabee tooshla buu u dhiibaya ama mider buu u dhiibaya. Okay, ilmihii maanta dhan iyo scrolling, qofkan waa qof gaal ah, wuxuu daawanaya maxaad ka og tahay, wixiiba ilmaha indhihiisa ku dhacaya. so ilmihii wuxuu baranayaa akhlaaq xumo, wuxuu ka baranayaa telefoonka shaqaalaha. way dhacday, that situation came to me. Okay, ilmihii wuxuu arkay, indhihiisi kama tirtiri kartid, you can't unsee what you saw. maxaa tala ah, yaa taa mas-uulkeeda qaadaya. walaalayaalow, waxaan janno ku galayno, ubadkan ilaahay uu la siiyey iska dhal maaha, ilaahay baa ku siiyey alxamdulilah. يعني لا يقول يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقل سما إنه عليم قدير. طيب ما تام إلى هاي النسية إن إنسانكم رأسنا سماها تشنادو محل ما لها إن وحلير هذا شورت كاتنا ما لها mana laha part time job. part time waxaan qabtaan janno ku galay ma jirto. responsibilityga caruurta waa full time ilaa maalintu kaa wareego ilmahaas asaga mas-uul noqdo oo ayeeyo noqotid. anaga maanta waa grandparents, ayeeyooyin baan alxamdulilah, we're not worried because maanta mas-uul inaka ma ihi alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. ayib laakiin haddaad ilmo yar haysid ama teenager haysid kumaba habboonaba inaad meelo ka sheekaysid. you don't have that luxury, ma haysatid. marka waxaan oran lahaa hadhowta intaad oran lahayd hoogayay ba-ayay maxaa leedahaa haddaba waad arkaysaan dhibaatooyinka iyo masaa'ibta social media laga dhex arkayo. gabar baasaa lagu sameeyey, wiil baasaa lagu sameeyey, kan goortay waxaa dhacayeen anagu xaganu jirne absent mind. sometimes under our noses in our house dhibaatooyin baa ka dhaca somaha within our family. hadhowta man gabgablen mas-uuliyadda waa inaan si fiican u qaadnaa insha allah biidni illah. markaasay walaashan sheegtay horta gaal ilmahaaga ha u dhiibanin. dhulka wuu kuu dhaqi karaa, dharkana wuu kuu dhaqi karaa, laakiin ilmo kuma rabayn karo. taas waa hawsha, and that's the responsibility of the parents. طيب جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
waxaan u malaynaya meesha la xalirda shah maanta shahini baad iimaanaya marka shah iyo sheeko soo maha waan idiin sheekeeyey haddana shah baad cabaysaan insha allah biidnillah jazaaka allahu khayr